السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ميل والبو دنيدا aad ka joogtaan saakay waxaan gurigeeda dhabta ah geynay walaasheen hibo oo kamid ah dadka reer Muqdisho kuba isticmaala aalada YouTube-ka ahina gabar runtii firfircoon dhan walbana ka fiicneed Allah u naxariistaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun meeshaan waa meel kulligeen dhamaanteen la wada socdo waay qof walba nolol dhami geeri wada dhaminaa hibo ilaaha u naxariisto waxa kaliya ay hadda inooga baahan tahay waxa waay inaan u duceeyno hibo waa iska xanuunsaneed labada bilo ugu dambeysay sad YouTube-keeda kaga arki kartaan maanta anagoo dhan hibo waa soo duugnay ilaaha u naxariisto hadalka kuma badnaan doono waxa kale oo nala joogo hibo seegeeda xasan runtii xaajidiisa maanta guriga dhabta hageeyay adduunyadana qof walba uu tagaa hadii qof adduunyada uu joogi lahaa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam joogi lahaa ha ogaado qof walba maalin inuu dhimanayo ha ogaado qof walba oo adduunkan nolol arko inuu geeri dhaminayo jamuuniya ku soo dhaweynaa jamuun soo dhaw aad u maasantay daax marka hore waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Allah u naxariisto walaasheena hibo oo kamid ahayd dhalinyarada ama gabdhaha YouTube-leyda ah bilay ugu dambeeyna aad u xanuunsanayd marka hore waxaan leenahay qof walba wax ku tabanayay ama hore isaga qalad iyo gaf jiray inuu iska cafiyo una duceeyo insha Allah inuu u fududeeyo su'aalaha waxaan leeyahay familka oo hadda nala jooga saygeeda xasan ilaa samir iimaan ka siiyo kulli adaa la joogay oo kabarhay dhibka iyo dhibaatada martay waxaan rabnaa in dadka la socday ama eeda daneen jiray inay u soo duceeyaan geera xanuun badan ee heesaakay waxaan joognaa qabuura iskool booliisiya meesha lagu aasay waxaan rajaynaynaa insha Allah qof walba wax ka tabanaya maalin una isgaareen inuu afin doono si degdeg oo ahaa sikadiisa u dhacday geerida kulay inteeni badan waa ka soo gaarnay dadka qaar wadooyin ku xirmay qaarna insha Allah way tacsiyeen doonaan dad badan ka soo gaaray familkeeda qaraabadeeda ehladeeda anagana waxaan leenahay insha Allah jannatu firdaws Allah ka baraabiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun كل نفس ذائقة الموت نفل بويد من جريدة إذا جاء أجلها لا يستقدرون ساعة ولا يستخدمون runtii waa geeri aad iyo aad u naxdin badan xaqiiqatan hibo waxay ahayd gabar Soomaaliyeed oo hamile isla markaana kamid ahayd dhalinyarada maaweelisa baraha bulshada qayb kamid ah waxaan leenahay samri iimaan Allah ka siiyo ehelkii qaraabadii familkii ka geeriyootay runtii aan Ismaaciil ahaana waxaan hibo qofka ugu horeeyay ama dadka ugu horeeyay social media isla soo bilaabeen xilligii ay ku soo biireysay aad baan ugu naxay runtii Ilaahay u naxariisto sidoo walaalkay jamuuni sheegana qof waliba oo runtii bar bulshada hadii lagu jiro walis qabana qofba wax qalad baa ka dhacaya qof waliba oo hibo ama ay ku gaftay ama ku gafay waan alla ka baryaynaa inuu iska cafiyo ayaduna maanta waa taa naga hooseysa oo gurigeedii rasmiga ah iyo hoytay dhamaantiin waxaan idin leenahay haloo soo duceeyo sidoo kale waxaan kaga tacsiinayaa walaalkay xasan oo ah sayga walaashay hibo Ilaahay asna samir iimaan Allah ka siiyo runtii xilligan oo kale markii la joogo waxa way qof oo inta badan aad waqti wada qaadateen aad wada nooleedeen hadii ay dunida ka tagto xanuunka iyo murugada la dareemayo qof waliba uu ogyahay marka dhamaanteen waxaan leenahay walaasheen iska cafino dhamaan YouTuberada meel kasta dunida ay ka joogaana waxaan ka codsanayaa inay u soo duceeyaan walaasheen Ilaahay samri iimaan Allah ka siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan leeyahay inta ku xiran YouTuberada waxa geeriyootay walaasheena hibo oo ahayd gabar YouTuberad ah oo aad ugu jecelayd in YouTube-ka ay ka gaarto hami weyn waxay kamid ahayd magaceed gabadha magaceeda raal noqdo maanta aadan qiiroonaya hibo waxay ahayd gabar oo YouTube-keena kamid ah waxaan ahayd gabdhaha YouTube-keena kor u soo qaaday oo waqtiga badan ku bixiyay waxaan leeyahay ilaaha u naxariisto sabr iimaan Allah ka wada siiyo qoyskay ka wada baxday iyo seegeeda xasan waxaan rabaa marka dadka wax u qabo in eegana iska cafiyaan
waxaa waaye inta youtube lagu jiro dagaal badana imaanayo waa laisqabanaa waxyaalaha micnana laisku qabanaa waxay ka mid ahayd hibo gabar annaga nala shaqaynaysay waa jirtay mar ay dhacda gef oon isdagaalnay laakiin saasay tahay waa ka heshiinay marka ugu dambeysay ani iyada si gaara u heshiinay marka waxaa leeyahay walaashayda ilaah u naxariisto qabrigeeda ilaah u waasiciyo kitaabkeeda midig allah ka siiyo marta la jecel yahay ilaah ka dhigo waxa waaye adduunkan waa laga tagaa wax laga qabanayo ma lahan qofkii isqaaqaada iyo qofkii meel dheer isgeeyo qabrigaan oo galaa dhulkaan oo galaa marka waxaa leeyahay meel walba aad joogtiin walaashiin u soo daceeya inuu ilaahay u naxariisto oo ilaahay ka dhiga martida la jecel yahay ilaahayna u fududeeyo su-aasheeda waayahay waxaan soo dhaweynaynaa xasan hibo gurigeeda waa geennay ilaaha u naxariisto bal xasan كلمة أقدر سنة مرهن الحمد لله إلى ونحرست ولا شيء. أنا أدعينا هيبو قفل بو إيد إسكت تبنايين حعفيه قفل بو دين كله أما هيبو دين كله نحط يارنا هاي إن أم بحنه حسن أو سيجي إذا الله ونحرسته سيجي إذا ديار الله إنه بحيو أنا كان وقرب تاجنا هاي هيبو إله ونحرسته مرتل جعلها الله كديجو لما أنتهينا إلهي كذا شيءنا ما فيدناي حليس عفيو الدنيا ولا جتاع قفك ما أنت نول بري منولو قفك ما أنت نول بري منولو قفك ولا لك عنده حمان كا مركا كلمة أنتو حين أقول بهانتا الدعاء أدعينا إلهي إنه نحرسته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.